labada kudlo ee baarlamaanka Soomaaliya oo kulamo gooni ah ku lahaa Muqdisho ayaa waxay sheegeen inaysan codka kalsoonida siin doonin xukuumadda cusub ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cabdirashiid Cumar Sharmaake aan ilaahay go'aankan ayaa soo baxaya iyadoo dawladda Mareykanka iyo qaramada midoobay ay soo dhaweeyeen magacaabista xukuumadda cusub. Cabdiraxmaan Furre ayaa haddaba go'aanka kudlooyin ka wareystay Cabdullaahi Jaamac oo madax u ah kudlada la magac baxday toosinta iyo talada qaranka ama TTQ. shuruudihii aan dhignay iyo waxaan isku fiirinay xukuumadda 20ka ee hadda lagu dhawaaqay waxaan noo soo baxday qodobo dhowr ah oo dhaliil ah oo aan isleenahay in la buuxiyaa loo baahan yahay. kow horta tashi meel kalama gelin arrintan iyo qaabka loo samaynayo. Parliamentarianka qofka ah oo MB-gaahi xaq buu u leeyahay inuu noqdo wasiir. waa midda keliya oo dastuurku uu ogol yahay. middaas hadduu ka tanasulayo waa inuu tashi uga tanasulaa. marka nala kalama tashan middaa. waa qodob. waxa weeye meesha ka muuqda shaksiyaad baa ka muuqda meesha aan isleenahay calaamadihii aad tilmaanteen waa khilaafsan yihiin oo aan hoos loo fiirinin. waxaan arkaynaa kooxo isku midaba oo kuwii aan ka didnay ah ayaa meesha ka muuqda. waxaa ka muuqda umuuro aan isleenahay khibradi ma jirto oo xukuumaddaani dhibaatada hadda dalka haysata kama saari karayso. waxaan prime ministerka marka usoo jeedino doodayadii inuu nala kulmo. prime ministerku marna nalama kulminin kutladaha inuu la tashado. baarlamaanka haddii la doonayo in xukuumad marto sidee dadkii loo keeni lahaa oon talo la weydiinin oo aan tilmaan laisla qaadinin inta liis lasoo qorto rag meel fadhiisto loo soo diri karaa. haddii liiska lasoo diro liiskaasi wuxuu la kulmo waxaa ka mas-uula tashi la-aan baa ka mas-uula. annaga waxaan rabnaa dalka ma curyaaminayno. waxaan rabnaa xukuumad dhaqsa ah inay dhalato oo ummadda u gargaarta wada tashiga in la badiyo. waktiga yarkaa la haysto inaan la dayicinin. xukuumad dalka u cuntanta wada tashi lagu keeno. sidaas wey sida aan ku wada hadlo. lama diidana laakiin wararku waxay sheegayaan haddiiba xukuumaddii lasoo dhiso idinka laftigiin waxaa leeyahay isbaaraad dhigateen ood ku goodinaysaan mar kasta inaad xukuumadda ridaysaan. laakiin ilaa hadda ma caddaa la leeyahay ujeedada aad u diidantihin. waxaad ka dhawaajisay inaad xildhibaanada baarlamaanka ay xaq u leeyihin in lagu soo daro. haddaan lagu soo darina waa mid meesha ku jirta. laakiin dhabaha waxa rasmiga aad ku diidantihiin ma cadda. maxaa ugu wacan arrintaas? ra-iisul wasaaruhu wuxuu galay heshiis buu kutuladaha la galay. wuxuu sheegay inuu tiro mataqaanaa awood qaybsi ah in la gelahayuu sheegay. tiradaas meeshuu uga baxay lalama socdo. cid la socota lama arko. waxaa la rabaa haddii go-aan hore laga baxayo in laiswargeliyo la yidhaho war sidaana maslaxada qaranka ku jirtaaye haddaan miis lasoo wada fadhiisan oo dadka stakeholderska wax ka dhexeeyaan aysan ka wada hadlin danta qaranka dhibaataa ka imaanaysa. waxaan oranaynaa waxa weeye tashiga iyo farsamada ha la badiyo hala xaliyo dhibaatada waxa carqaladaha laga qaado meesha. baarlamaanku isbaaro ma dhiganayo. markale anaa ku celinaya isbaaro wax la yidhaahdaa ma jiraan. laakiin wixii aan dalka iyo dadka u cuntaminin baarlamaanku waa diidaya. horena waa u sheegnay sidaa. waan gartay. haddii idinku aad markaasi tidhaahdaan dee annagoo magacyadanan haynaa dadkan ku soo dar ra-iisul wasaaruhuna awooddii iyo sharcigu dastuurka u siinay inuu dad soo xusho say isku qabanayaan marka? adeer muddo badan dhibaataa jirtay. waxa weeye sidaad la socota 2 ra-iisul wasaare ayaa xilkii baarlamaanka ay ku kaliftay inuu markay madaxtooyada isqabteen inuu ayaga ka xayoobiyo si aan wadanku u qataarminin. dhaqankii asaga ahaa ee waxaas koos gareeyey hoos buu ka nool yahay inuu jiraan aaminsannahay. dhaqankaasi meesha laga saaro. dalka in la fududeeyo. qof waliba mas-uuliyadda saaran inuu fududeeyo. qofna yuu qof ku dhegin kan cilada leh kan musuq maasuq leh. maanta waxaan baasgaraynay sharciga hanti dhowrka. war qof ku eedaysan inuu hanti lunsaday ama lagu soo qoray mataqaana eedeyn caalamiya ama mid loo kala ama haddeetaan faylkiisa antidhowrku daba taagan yahay ama karti aan ulahayn wax ku fuliyo
baarlamaanku ansixin maayo. laakiin dadka cilbaan su-aasha meesha ku jirta waxay tahay dadkaad leedahay waxbaa lagu soo qoray tusaale ahaan oo kale oo beesha caalamka soo qortay beesha caalamka laftigeeda soo dhowey soo dhahaysa waxay ra-iisul wasaaruhu soo magacaabay golo wasiiroo wanaagsan hadalkaas suu isku gelaya marka annaga horta beel caalam kama shaqayno ummadda soomaaliyeed baan u dhaqanay iyadaan ka shaqaynaa beesha caalamku danaheeday wadataa annaga danaha ummadda soomaaliyeed baan ilaalinaynaa inaan aada iyo aad weliba uga garawno oo fududayno oo aan u dhimrino ummadda ayaan diyaar u nahay laakiin ha laysla tashado meesha ciladu ku jirto marka laysla tilmaamo dalku waa hagaagahaya